noocaas oo kala ah xabad baa lagu dhufan jiray xildhibaan Khadar Cali Xakiin oo kamid ah mudanayaasha cusub ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa nasiib darro ku tilmaamay xadhigii dhawaan lagula kacay samafale Cabdimaalik Sheekh Muuse Coldoon haddii dulmiga laga hadli waayo oo loo qaylin waayo oo la oran waayo waxaas waa dulmi waana arrin adag wax suuragal ah in dalku inaga dumo qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada Burco ayaa maanta isugu soo bannaanbaxay mudaharaad ballaaran oo ay kaga soo horjeedaan xarigga wariye samafale Cabdimaalik Muuse Coldoon oo dhawaan xukuumadda Soomaaliland ay xabsiga u taxaabtay dadweynaha oo sita boorar ayaa ku dhawaaqayay erayo ay kaga xun yihiin xarigga xukuumadda Soomaaliland ay u geysatay wariye samafale Cabdimaalik Sheekh Muuse Coldoon madaxweyne waxa haboonayd markii lagu saxay insaan bay noo waynu qaldami karaa markii lagu saxay ee xog aadan hayn lagu siiyay waxa haboonayd inaad joy ciise masaafuriso bisanaad Coldoon xidho waxaan idin kula dardaarmayaa reer Burco reer Togdheer waxaan idin kula dardaarmayaa axad ama qof dhexdiina ayaan lagu dulmi haddii qofka aynu ogolaanno in dhexdeenna lagu dulmo berri ka maalin aday ku imanaysaa aynu garab isi siino aynu dhammaanteen aynu xaqa garab siino haddaannu maanta reer Burco nahay waxaannu ka midaysannahay axsaab ma nihin qolqolo ma nihin waxaannu ka midaysannahay xadhigga dulmiga cabdimaalik miyuu dheeraadinagu yahay waxaannu leenahay cabdimaalik kaagama go'o gaalada dheeraad dalka kuma aha waa indhaha dalka aan baa ugu diraynaa Cabdimaalik maanta uma xidhna siyaasad uma xidhna arrimadana gaara shakhsiyadiisa haday noqoto shakhsiyad reer haday noqotoba wuxuu xidhan yahay diinta islaamka diinta cidii ehelka uu ahaydna maanta Hargeysa ku shiraysaa culimadii ugu waaweynaa arrimo dhow oo aan maanta ummadda halis ku ahayn bay culimadaas maanta inta badan ku fogeeyeen waxaan baaq ugu diraynaa culimadaas Cabdimaalik arinta lagu xidhay Ilaahay baa ka shifay waa tii cadaatay gabadhii waa tii carartay markii arinteedii dibadda soo baxday iskuulkii ardadiisii maanta waa loogi halka wax marayaan oo ardadii dugsiga dhigaysatay baa xaqiiqooyinkii soo bandhigay culimada waxaan leenahay kelmadda xaq ay Cabdimaalik ku dhiiraday idinku ku dhiiray